kuwani waa ciidanka harka iyo hoyaadka u diiday warjoogayaasha sarsare ee al-shabaab kuwa saqda dhexe u daatay argagixisada kuwa muuqoodu argagaxa uu ku beero cadowga kuwa shiishka dheer ee meelaha fog ka toogta haraadiga nabadiidka in la helo ciidan leh awood badan khibrad dagaal iyo taatikooyin sare waxay Soomaaliya uga dhignayd farxad dib u hawlgelintii ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ahayd waqti baahi weyn loo qabay taariikhduna waxay ku beegnayd bishii Oktoobar sanadkii 2013 xilligaasi oo lagu aasaasay hal hurin dhinaca tababarka iyo qalabaynta waxa ka taageera dawladda Mareykanka waxayna kaalin weyn ka qaadatay ciribtirka argagixisada danab halku dhigyo ayuu lahaa danab waxa la dhihi jiray cir dhul bad u dirir gobonimo midnimo iyo sarayn muddadii ay jireen ciidanka kumaandooska danab waxay soo hooyeen guulana taaban karo waxay beegsadeen horjoogayaal sarsare oo ka tirsan argagixisada waxay xoreeyeen degmooyin iyo deegaano badan oo ay nabadiidku ku dhibaatay jireen dadka shacabka ah waxay fuliyaan hawlgallo qorshaysan oo jab culus lagu gaarsiiyey cadowga kuwaasi oo lagu burburiyey goobo maxkamad beenaadyo saldhigyo laga soo abaabuli jiray qaraxyada iyo weliba kaydadkii hubka ee nabadiidka sidoo kale waxay hawlgallo gaara ka fuliyaan goobaha gabaadka u ah ee ay isleeyihiin horjoogayaasha al-shabaab laydikuma imaan karo taas oo dhabarjab weyn ku noqotay hurdadana u diiday horjoogayaasha argagixisada arxanka daran ee al-shabaab